السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا الصوماليات waxaan idinku talagalnay in aan idin soo gudbino barnaamijyo gaar ah aan ugu talagalnay toddobaadkii xorriyadda ee geyga Soomaaliyeed oo Soomaali weyn ay wada qaadatay xornimada 26 Juun oo gobolada Waqooyi 27 Juun oo wadanka Djibouti iyo 1 Luulyo israacayna jamhuuriyaddii Soomaaliyeed ee qaateen gobolada Koonfureed hadduu alla raali ka noqdo waxaan idin soo qaadi doonaa muhalgamayaashii dalka Soomaaliyeed ee doonayay in ay qaataan xornimo magacyadooda iyo waxaan idin soo gudbi doonaa taariikhdii Soomaaliya ilaa maanta Soomaalida waxa ay ku sugan tahay hadduu alla raali ka noqdo socodsiinta barnaamijka intuu hawada ka baxayo waa anigoo ah Cabdulqaadir Abuukar Xaaji tankii labada geesood midiladnaata walxiyo labaatankii labada geesood midiladnaate lurtii gumaysiga gedheer kulaale lurtii gumaysiga gedheer kulaale laydhkuno tiime laydhkuno laydhkuno tiime laydhkuno tiime sharuma bishii belaayada xijaabtayda bishanuma bishii belaayada xijaabtayda ma bishii cadowgii tegaya caalimkooy barta ma bishan aabba iyo hooyiyo abyeeshayba ma bishan kambasina karaamada ku taagayba ma bishan soddon dawladood wada salaamayba hadduu soddon gaadhay caalaankeenni sadada siday sagaashan intuu tagaayana sidriga ku hay halyay u heerarsan in ay ummadda Soomaaliyeed ay yeelato wadan quraya jamhuuriyad ayaa u halgamay in ay Soomaaliya ka kacdo gumaysiga hase ahaatee 1960kii Soomaalidii waqooyi ayaa ka kacay gumaystihii Ingiriiska 26 Juun halka habeenkaasi caalanka Soomaaliya ay lagu suray magaalada Hargeysa ee beerta xorriyadda dadkaasi ayaa go'aan geesinimo qaatay marka ay ku soo biireen walaalihii Soomaaliyeed waxayna qaateen calan midaysan oo calankaasi sameeyay Allah u naxariistay Maxamed Cawaale Liibaan calankaasi ayaa calan buluug xidigtana shanta gees dhaxda ugu taalo xidigtaasi ayaa ka jurjumaysay shanta Soomaali oo kala gumaysteen Ingiriiska Faransiiska Talyaaniga iyo labada hadda ay ku kala maqan wadamada jaarka sida ugaadeeniyay NFD oo Ethiopia iyo Kenya kala haystaan habeenkaasi waxaa goobta gabay dheer ka qaaday Allah u naxariistay abwaan Cabdullaahi Sultaan Timcate wuxuuna yiri sida tani naxahan kunimiyo dhibahata mudho doomahalayga saaray dhinacyadaay daara hartan waxyeelaadihi dhaqdhaqe caalanka dhidbaysowmaasoo
halka kale waxaa ka socday gobonimo doon oo aada u doonaya dadka Soomaaliyeed in ay ka qaataan dalka Talyaaniga oo koonfurta Soomaaliya gumaysanayay. dadkaasi ayaa samaystay urur midaysan oo magaciisa la yiraaho SYL. ururkaasi ayaa ka tirsanaa 13 dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo ay ku jireen dadka kani, kuwaasi ayaa magacyadooda iyo da'antooda iyo xilliga dhasheen kala ahaa. Cabduqaadir Shaqaawudiin wuxuu dhashay 1919 wuxuuna ahaa 24 jir markuu ku biiray ururka SYL. Maxamed Xirsi Nuur CD wuxuu dhashay 1915 markuu ku biiray ururka SYL wuxuu ahaa da'diisa 28 jir. Yaasiin Xaaji Cismaan Sharmaake wuxuu dhashay 1917 wuxuuna ahaa 26 jir markuu ku biiray ururka SYL. Xaaji Maxamed Xuseen wuxuu dhashay asigana 1917 wuxuuna ahaa 26 jir markuu ku biiray ururka SYL. Cismaan Geedi Raage wuxuu dhashay 1925 markuu ku biiray ururka SYL wuxuu ahaa 18 jir. Dheere Xaaji Dheere wuxuu ahaa markuu ku biiray ururka SYL 17 jir wuxuuna dhashay 1926. Daahir Xaaji Cismaan Dhagaweyne wuxuu dhashay 1925 wuxuuna ahaa 18 jir markuu ku biiray ururka SYL. Cali Xasan Maslax wuxuu dhashay 1919 markuu SYL ku biirayna wuxuu ahaa da'diisa 24 jir. Maxamed Cali Nuur markuu ku biiray ururka SYL 16 jir ayuu ahaa wuxuuna dhashay 1927. Maxamed Faarax Hilowle markuu ku biiray ururka SYL da'diisu waxay ahayd 18 jir wuxuuna dhashay 1925. Maxamed Cusmaan Barbe wuxuu dhashay sanadu markay ahayd 1910 wuxuuna ahaa da'diisu 33 jir markuu ku biiray ururka SYL. Huudow Macal Cali Saalax wuxuu ahaa da'diisu markuu ku biiray ururka SYL 17 jir wuxuuna dhashay 1926. Maxamed Cabdulaahi Xayse wuxuu dhashay 1918 wuxuuna ahaa markuu ku biiray ururka SYL 25 jir. dhammaan dadkani ayaa u ahaa kuwa halgamay mideynta ummadda Soomaaliyeed iyo gobonimo doonkii goboladii koonfureed ee dalka Soomaaliya. asaaskii SYL wuxuu ahaa sanadu markay ahayd 1943 waxaana lagu asaasay gudaha caasimadda ee dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho. waxaana gundhigu ahaa raggii aan magacyadooda hore aan ku soo xusnay. waxayna hayeen kuwa u halgamay jeclaanta iyo mideynta ummadda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliyeed. hase ahaatee markii uu gumaystihii ka kacay guud ahaan geyga Soomaaliyeed oo ay midoobeen labada Soomaali ee kala gumaysan jireen Talyaaniga iyo Ingiriiska ay ahayd 1 Luulyo waxaana madaxweyne doorasho ku imaaday soo gaaro oo ahaa Allah u naxariistay Aadan Cabdulle Cusmaan waana madaxweynaha taariikhda Afrika ugu horeeyay ee lagu ku imaado xilka si doorasho kuna daga si doorasho oo xalaal ahi. شراي وبالمهيمه شولا ولا مطارو لبدو ويسلا جيرالو واجر كاين حروريو علان كلا لا جوجايا abwaan Saxardiid Maxamed oo Jabiya la yiraahdo oo sameeyay heesooyin aad u fara badan oo ku jiraan kuwa jacayl iyo kuwa wadani ah
oona joogay markaan qaadanayna xornimadii 1960kii 26 Juun waqooyi iyo 1 Luulyo koonfur ah midoobeyna labada gobol heesooyin fara badan sameeyay ayaa qadka telefoonka magaalada Hargeysa kula xiriiray wuxuuna iga sheekeynayaa xornimadii iyo sidii uu xasuustay iyo waxyaabihii uu sameeyay Abwaan Saxardiid maxaad ka xasuusataa waxyaabihii aad soo bandhigteen marka qaadanayna xornimada Abwaan bismillaahir rahmaanir rahiim goobjooga horta waxa weeye riwaayadan baan meesha u sameynay oo loo oran jiray gardido aaladii marka waxaan sii qabanay inaan sida ay u dhici doonto maxaan ku dhahday dawladnimada si loo heli doono cidda heli doonta waxa soo dhan ayay riwaayadu awaadaas ahayd dabeetana sidii aan anagu dhignay ayay u dhacday halkee ka dhigtay marka rubaayada Abwaan Saxardiid waxaanu ka dhignay national cinema Hargeysa waa halka beerta xorriyadda la yiraahdo lagu kala wareegay 26 Juun Soomaalida Ingiriiska ay ku kala wareegayeen goobjoog mu ahayd markuu Cabdullaahi Suldaan Timcad dhahay calanka ka nasiib ka nasaar goobjoog baan taana waa ragii keesay baan kamid ahaa ka u sameeyay taliifta heesii aad curisay oo markaasi meesha laga qaaday 1960kii maxaa kamid ahaa Abwaan waxaa kamid ah hees la yiraahdo maama gawdo candadii golaha marise waa maantiq lafteedii weeyaan marka waxa sameeyay Saxardiid Maxamed adiga naaqa aadan baa markaa ku soo dhigtay ma garanaysaa jaraa'idkeeda naaqat al-hurriya markaas cadan baa waxa baa naga dhaxay sida dadweynaha alaabta ugu soo rari jirnay Abwaan hadda ku qeybgalka noogu luqay sida dadweynaha u maqlaan heestaasi luqdeedii waan ku luqayn karaayo waxay luqdeedu ahayd maxaan ku dhahday ma jiro maanta midagubeysigii xidigtaa muuqatayna may dhaantay waa maalin hor looni soo marinay amaan lahashina maandeer ma gawdo candadii kula marise an maalo hashina maandeer waa maalin muran iyo marka maxaa kale oo kamid ah oo heeso maalintaas meesha aad ku soo bandhigto adiga aad sameysay Abwaan waxaa kamid ahaa Soomaaliya kulliga kulmiya la soo dheh ummadkoon labaho kartilo ururta isticmaar kicise waakiyay nu rabne kifaaxi ugale Soomaaliya kulliga kulmiya la sure kadaba daha ay nurne kifahi sagalne waqi ay nurne kifahi sagalne somalay kulliga kulmiya la sude kadaba
sugaanta kale aad xasuusato maxaa ka mid ah oo maalintaas lagu soo bandhigay in goobta 26 June iyo 1 Luulyo ها وانقا هايو لكن دويلة انت وقت دير ويان لكن بيتي قدام بيه هو نكيال يسلا مكانو قاطع وحا قاطع اثناء بلاي عص بطل عص محمد حاتي اسماعيل مركا وحولي انقو قرنيو الصومالو قروحلي سنينا ما ينو قرصوني تيسي كجرتو ايا ايضا هبيكا كمدهاي وفرح سمان مركا يا علي السجل نفس قارب سمي علي السجل اللي وحولي دغارتي ولا الكيلو ديسيين وتي بس سوما صوتين واتو محمد سليمان قاضي وتاب محمد سليمان قاضي nasiib wanaag waxaan qadka telefoonka kula hadlay maama Shamis Abukar Guduudo oo goobjoog u ahayd waagii aan qaadanaynay xornimada 26 Juun iyadoo ku sugan magaalada Burco maama Shamis ayaan weydiinayaa su'aasha tani maama Shamis maxaad ka xasuusataa markii aan qaadanaynay xornimada 26 Juun 1 Luulyo midowgii waxba ka xasuustaa nagu sheeg bismillaahir rahmaanir rahiim allahumma salli ala sayyidina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومدة الصوماليات ودوما بريدنا مركز سيجوكتو مالين تاسي مالين وين أيه فرحات وين لي ومالنتي عبد الله سلطان تبع الدعلاء ونحرسته وداني وينا وكان نسيب كان نسار قولها هل كان إمنك بساعتك لغاية سيفنا عن ديري إيه إنجليزكا أنا للرجل يتبرو سعوني كأننا نساري نقول استخيي أيه المعلومة وين بين إلهي سبحانه وتعالى مدر خير قبا يوشوا هبين كينا بيرت حريتنا أيان وشوقني ومالتي هبين كيقول رسالة الصومالية دو حرة سبحان الله إلهي با معدوس قلاتي وإلهي إنجليز كينا غيري فرحت وين بينوعي ومدة صومالي مالك جوتا فرحت واحد أما هبينكي ومحمد أحمد نقالي مقودة عن الذي قلها مرسي وهبينكي علي سبيل هيس أولها درارتي ولكن لو نسيي أن هفتي لشي صومت ودعين 8 سنة أي داخلي هيسي ولا لين كونفرين إنا كنا 2 سنة أي نكعنا كل كاسا دائما هذا لكور هذا waxaynu ka horeynaa 4 cisho farxad weyn bay habeenka waxaan moodaynaa in dambigeygii la dhaafay Soomaaliya kulliga kulmiyaa la sudhay kadaba dhahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin ilaahay bay mahaduu sugnaatay maanta ay igu soo sameeyaan ka sheekeeyo waa Shamis Abukar baradan wax ka weydiiyo markaan qaadanayno xorriyadda 26 Juun oo kale beerta xorriyadda iyo fantasiyaha iyo bal sidoo ahaa markaasi maano Allah tuqaaliyo ninkii joogay ba joogay khayr Allah ku siiya habeenka hadda yaani farxad oo in baa imka dani haysa
يعني وحكنا يا هاي وحكنا وحنا موضين أنك دايوس دمجة الصومالي ودم للدافي أيام موضين وموت السحيل كيسو قبطا لا إله إلا الله محمد رسول الله السحيل كي وموت يسو قبطو هيرو كيسو قبطو إيدو وحوين بيا هيدي دكانو سيكين كرو حسيكا دكسو كوبي كرو maaha fanaaniinta markaas meesha ku sugnayd oo heesaha qaadaya maxamed axmed iyo cali suugile maahane yaa kaloo ka mid ah halkaas heeska qaadaya oo iminkaba nool ama qaarkoodaba dhintay allah raggii u wada socda cabdullaahi qasi aawe abin fanka soomaaliyeed aawe xuseen oo faarax maxamed saciid kuroonjida aawe maxamed yuusuf cabdi rag badan baa jiray xagga hablahana islaan maxamed cabdikariim hablaha waxaan nahay aniga iftin nooleeya allahuma salli calaa sayidina maxamed intaasaan xasuustaa marka maxaa filaysa markaas waa taadhiisa dembigayga in la dhaafaan filinay goobtana sidee ahayd iyo dadku sidee ahayn alla eedo waxay ahayd laa ilaaha illa allah maxamed rasuulullah heesaha horta aan kaaga sheegay markaanu samaynaynay heesaha wadaniga iyo markaanu samaynaynay idaacaddaanu joognay daasad qoran la odhan jiray yaanu shaha ku karsanaynay ingiriis baa haysta xafiisyada kadhiyaa jiray laylka lagu kariyo shaha wuu naga wada xiga wuu cadhaysanaa annagu daaradan annagoo faraxsan allah u naxariista mustafa xaaji nuur ninkii garanaye wariyihii fiicnaa cabdi ducaale aabihii wariyaasha soomaaliyeed cabdi ducaale ay cabdi ayuu ku dhaaneys jireen magaca anigay bixiyey guduud carwo maxay hayto farxad maxay allahuma salli calaa sayidina maxamed yuusuf maygaan samatar markaasaanu saambuuse jaad lama aqoon soomaali wax haysataa ma jirin ninka ugu lacagta badan harka laarig baa noolay dareewar baa ugu lacag badnaa soomaali waxba ma haysan laydharkan iyo waxaan laysla jiidaya lagu kibrayo maanu haysan faynuusyaanu shidan jiray laambadaanu shidan jiray marka heesahaanu xafidayno timir cabdullaahi qarsi timir buu heesaha wadaniga ku samayn jiray oo iramadu ku xafidi jireen oo lagu soo jeedi jiray raggii waxaa imika ka nool basbaas maxamed aadan dacarna isagoo inan yara ayuu joogay markaa gobonimadii iyo halgankii ay u soo mareen madaxdii iyo dadkii soomaali guusheeda jeclaha ayaa waxaa ka mid ahaa allaha u naxariistee maxamuud xarabi oo ka dagaalamayay dalka jabuuti ee dadkeeda soomaaliyeed ay doonayeen in ay qaataan gobonimo hase ahaatee maysan suurtagelin inay qaataan 1960kii laakiin waxa ay qaateen 17 bisha juun 1977kii oo xilligaasi jamhuuriyadda soomaaliyeed dagaal ay kula wajahneeda cadowgii wadanka Itoobiya hase ahaatee dowladdaasi oo jecleed in ay kusoo biirto jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliyeed oo laba lugaheed lugtii saddexaadna ay dooneysay in ay ka mid noqoto jamhuuriyadda soomaaliyeedna ay ku mashquulsaneed in ay soo dhiciso lugta afraad oo Itoobiya haysatay ayaa u suurtageli weysay in ay kusoo biiraan jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliyeed wadanka Jabuuti hase ahaatee Faransiiska oo la talin badan siiyay ayuu yiri aan sugno inta yar ay wadanka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliyeed ay ka soo dhacsanayso dhulkii Ogaadeniya oo haystay wadanka Itoobiya oo Ingiriiska ku wareejiyay wadankaasi hase ahaatee markii Soomaaliya looga igtaal darnaaday dagaalkaasi ayay jamhuuriyad gooni u istaagtay ay noqotay wadanka walaaluhu aynu nahay Jabuuti فقبي عاشوا وصافع عواوا
allaha u naxariistay madaxweynayaashii jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliyeed iyo jamhuuriyadda jabuuti ee walaalaha aynu nahay jaala maxamed siyaade bare iyo allaha u naxariistay madaxweynihii jamhuuriyadda jabuuti madaxweyne alxaaji xasan guuleed cabdidoon ay lagu soo dhaweeyey mar uu marti ku ahaa jamhuuriyadda dimuqraadiga ee walaalaha aynu nahay iyo ehelwadaagta wadanka jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliyeed madaxweynaha siyaade bare ayuu wuxuu ku soo dhaweeyey magaalada afgoye caruur fara badan halkaas ay ku sugnaa ay u qaadeen hees ay ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogtay ay la dhaceen oo aada u macaaneed oo tusinayso walaaltinimada iyo ehelnimada iyo wada dhalashada ka dhaxaysa jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliyeed iyo jabuuti. jabuutay maanta waxaa la joogtaan dadkii idin jeclaayo jaalayaal ka dhalateen la dhalateen jaalayaal ka dhalateen. taasi ayaa ahayd mid maxabo iyo isjeclaan dadkii wada dhashay isdhalay ee soomaaliyeed meel weliba ha joogaanay isdhexgelisay. hase ahaatee nasiib daro dowladii jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliyeed uu hogaaminayay jaala maxamed siyaad bare oo ku qabtay xilka kali-talisnimo oo la dagaalamay etoobiya ay suurtageli weysay inuu guula kasoo hoya iyadoo taasi ay sababtay soomaaliya oo cadow fara badan yeeshay markii uu jaal maxamed siyaad bare uu ugu baxay balantii soomaalida dadkii hubka sii jiray ee midooda suufiyada. hase ahaatee waxay noqotay jaal maxamed siyaad bare inuu dib u korasho soo sameeyo wuxuuna uu xasuuq u geystay dad fara badan oo soomaaliyeed oo ku noolaa magaalooyinka waqooyi ee dalka soomaaliya iyo kuwa talisya ciidamo oo dilay.
waxaana dadkaasi dilka ka mid ahaa hogaaminaya jarnaalka hadda ku nool gudaha iyo geyga Soomaaliyeed ee Jarnaal Morgan oo duqeymo ka geystay gobolada oo ka talinayay ee waqooyi sida Hargeysa iyo goboladaasi. taasina waxay sababtay in ay burburto Soomaaliya iyo dagaal sokeeyana dhex galo dalkii Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Soomaaliyeed. haddaba Soomaalidii oo in badan ku soo nooleed nabad iyo xasilooni iyo isjeclaan ayaa u furmay buug cusub sanada markay ahayd 1991 hase ahaatee wax waliba waxay ku dhacaan qadartii Alle iyo tii Alle waxaana ahayd mid murugadeeda iyo xanuunkeeda leh. dagaal sokeeye ayaa ka dilaacay gobolada koonfureed ee dalka Soomaaliya iyadoo taas ahayd in xilka lagu turo Jarnaal Siyaad Barre oo wadanka Soomaaliya waxyaabo fara badan ka soo qabtay oo isjeclaan iyo nabad hase ahaatee nasiib darro Soomaaliya waxay noqotay mid afka ciida la gasho burburkii wadadii burburkana heshay. waxay isbadbaadiyeen gobolada waqooyi oo samaystay maamul ay ku sheegeen in ay kaligood ay ismaamulaan waxayna sheegeen in ay goosteen noqdeen wadan. hase ahaatee tan isweydiinta iyo istixgelinta mudan ayaa Soomaali mayay kala maarmaysaa. Soomaali waa mid waa uliga meydhax matana weeyo meel bay ka wada timid. Muqdishoy Hargeysa ma ka maarantaa, Kismaayo Jabuuti ma ka maarantaa, Garissa Boosaaso ma ka maarantaa, Jigjiga Cabudwaaq ma ka maarantaa, Boromo Baydhabo ma ka